bar Soomaaliyeed oo nin Maraykan qabo oo carruur badan u dhashay oo dhammaantood af Soomaaliga ku hadla waxa ku dhisay u dhacday waxay dhahdeen hooyadood ma waxay go'aansatay inaanay u jawaabin haddii uu af Soomaali wax ku weydiin waayo waa ilmo nin Maraykan dhalay laakiin hooyada Soomaaliyeed waxay ku dadaashay inay ilmaheeda iyadu ma af Ingiriisi la waa gabadh aqoon oo wax baratay laakiin waxay rabtaa luqadeeda inay barto dabeetana ilmaheedii yaraa waxay ku bilowday iyadu inay af Soomaali kula hadasho aabahoodna af Ingiriisi kula hadlaa ilmaha yar isagoo bilingual buu joogaa aabihiina af Ingiriisi kula hadlaya hooyadiina af Soomaali kula hadlaya intaasoo carruuray dhashay dhammaantood af Soomaali ku hadlaya hadday af kale wax ku weydiiyaan way u dhagoolaysaa lama hadasho aniga maaha bay leedahay qofka lala hadlaya dabeetana wuxuu ilmuhu ku qasbanaaday si hooyada xidhiidh ula sameeyo inuu ku hadlo maxay iyagoo yar waxa kaloo arkay tajribo uu sameeyey nin carbeed oo aqoon-yahan ah ilmihii uu dhalay ayuu xaaskiisa wuxuu ku yidhi adigu lahjada kula hadal inay labnaaniyiin baan u malaynayaa lahjadoodan maxalliga ah aduu kula hadal buu yidhi aniguna fusxadu maan kula hadlayaa ilmihiisa isagu fusxada quru kula hadlaa islaantuna lahjaday kula hadashaa ilmihii 3 jir markuu marayo fusxada iyo lahjadaba si fiican buu yaqaanaa aabihii markuu la hadlayo luqa alcarabiya alfusxa taa quraanku ku qorayo ku hadlaya hooyadii markuu la hadlayana af carabigan jajabana suuqa lagaga hadlayo odayga wuxuu leeyahay lecture buu ka jeedinaya oo kaga warramayo waxyaabaha qariibka ah aan arkay waxa kamid ah buu yiri hooyadii baa oranaysa aabaha waxa ku dheh iyada lahjad bay ugu sheegaysaa markiiba intuu tarjumaaniga fusxadun bay ugu sheegayaa buu leeyahay waayo aabaha fusxadu ma barta waxa kaloo lagu la hadlaa ma jirto luqa alcarabiya alfusxa buu ku hadlaya waxa dib nagu noqotay buu yiri maadaama aanu laba nin nahay luqada carbeedna dhadig iyo rag ay leedahay maanan haysan buu leeyahay luqadii qaybteedii dhadiga ka warramaysay ciidankooda markii dambe ilaahay siiyay buu yiri markuu kan 3 jir marayay mawlud kalaan helay oo yar oo inana negotiationkii inantii baa yana wararkii ka soo qayb gashay saddexdeeduba fusxadaan ku wada hadalnaa buu leeyahay waxaan uga dan leeyahay ilmuhu intuu yariyay haddaad ku tijaabiso afkaas dhegtiisana uu ku dhaco guriga marka la hadlayana uu afkaa maqlo waayo ilmuhu markuu yariyay ee koowaad afka wuu urursadaa wixii dhegtiisu waayo noloshoo dhan muxaakaa buu ku bartaa isku day noloshoo dhan isku day buu ku bartaa marka hore wuu ururiyaa dabeetana waxaa bilaabantay inuu afka fahmo keen baad leedahay wuu keenayaa hoobaad leedahay laakiin isagu ma odhan karo waayo weli makhaarijtii ma helin makhaarij alxurufalka ka soo baxaysay tijaabuu bilaabaa markaa inuu xarafka meeshii laga soo saari lahaa yidhaahdo si qaldan buu ku dhawaaqaa inta hore oo dhan carruurtu erayadii oo qaldan oo aan si sax ahayn inta hore hooyadooduba afkarata oo tidhaahdaa waxaasuu rabaa saasuu ku leeyahay waayo makhrajku si qaldan ugu dhawaaqaya laakiin tajribadu wadaa muddo markuu tijaabada wado marka dambe eraygii oo dhammaystiran oo sax u soo tuuraa inta hore ilaa 200 oo eray buu bartaa intaasuu isku celceliyaa ilaa 4 jir markuu soo gaadho wuxuu tiradu way sii badataa ilaa 700 eray waxbay soo gaadhaa 5 jir 6 jir markuu gaadhana waxaa laga yaabaa luqada inteedii ugu badnayd inuu hayo idan waalidku halkaad adigu af Sawaaxili jajaban kula hadli lahayd af Soomaali fasiixa kula hadal isaga baranayee inagu markaynu hadlayno Sawaaxili jajaban ma ku hadashaan Soomaha marka intaad Sawaaxili jajaban kula hadli lahayd adoo af Soomaali sax kula hadal isaguna wuxuu baranayaa maxay af Soomaaliga saxa ha ka warwarin Sawaaxiliga birito ku la ciyaaraya carruurta buu ka baranaya kuwan dabada uu kula ciyaaraya ma iskuulka markuu taga maqaan birito sagara uu baranaya laakiin tiisa kale waa inuu sugaa intuu guriga joogo taanu meel laba u bixin guriga joogo waa inuu afkiisa hooyo u sugi karaa afkuna waa xidhiidhka waalidku wuxuu ugu sheegi karaba ilmuhu dhalay af kale kuma sheegi karti kiinaba af kale ku gudan kara wuxuu rabay oo dhan hindida bay yidhaahdeen afku urdugu kama lumo India marka la joogo
وميل ديما بدن أو أفف بدن كمانكم أفلقوا هذلو كمانكم ديما ديالين سادرات ديت قفكم مركو ودن كيسة شوقي بفيتشيغا أيو سو تشيد مركو إندية شوقي بوحو قبي دقال أفاد يديمات با دبتنا وحو أها قف فيتشيغو سو تشيدا بالعكس إنكو مركو الصومالين هاي أفكا كما إنن فكري جرين ودد كورنا ما أفقروا مكو هدلي جرين دينتا كما إنن فكري جرين ودد كورنا من دين قلوة ده هايستي وإلماها معلم قرآن كاية سكول كقوة شوغاية قوة ساد دين تودغاية أبوه دين بومشيك جرين مركا إنو هل كان نمي حقا مركا إنو شوغري مركا أبوه حكا أتكا إنو إلماها سيانو قاچوري وحو عنينو قريقا كيانو هو يدنا وحكا أتكاي inay u kariso oo nadiifiso oo dharka u maydho hagaajiso intan ama wixii af iyo waxbarasho iyo bulshado dhanba wadaagay meelahan markaynu nimina sidii baynu inagu u fakarnaa adaguna bariskiiba ku maqayeen salaantuna way karinaysaa oo yaa baraya kan marka afka iyo diinta iyo dhaqanka iyo hidaaya baraya laakiin ninka hindigii markuu halka joogayna isaga diintiisa ilaashanayay oo afkiisa ilaashanayay oo dhaqankiisa ilaashanayay oo way jaarkiisa af kale iyo diin kale haystay سادردد وكيلا شني سكول قاربوا لها أفقاربوا لها دغن قاربوا لها ضد قاروها وضد كلا للدقن هل كان مركو يمنا يسقوا سيديسي وانكي إلى شري يفكي سي الدين تيسا لكن هذا وحتى رحي الله ديون ضدك كم من نغضو دي ما هي أنا قارق الله عن باب يسكي شريو ملوي لا يهدا تكتيش على الاسكري دايو عرضا تكتا عمل كذا يا شايو ملا دين انه ددك ku daransanno anu waxa isleeyahay dadka ba kamaynan yaraaneen umadahaynu biirinin sheekh saailkan wuxuu leeyahay af Soomaaliga waxa la qoray 1972 maxaa u diiday culimada in ay dadka ku wacyigeliyaan af Soomaaliga in la barto واشتكى علماء بنو مالين واحد وضو علماء محانا في صوماليا هنا يدينكو شاغان يعني في صوماليا يدينكو شاغان ما حد ربتين تان خطبه دايما دوننا ندادو في صوماليا لوgu sheego halka kan markii wadanka la joogay dhibtani kuma badnayn dadka markii qurbaan loo soo baxay bay ceebtani muuqatay oo dadku la wada arkay in luqadii iyo dadkiiba sii lumayaan ama sii halaabayaan saddex group aan sheegay aan lahaa af Soomaaliga way u dadaaleen saddexdii kooxood saddexdooda kooxood ka dambeeyay mararka qaar kood waxaan idhaahdaa iyagu uma dadaalin culamadii hore maadaama ay luqad Soomaaliyeed oo barax tiran ku soo qaateen cilmiga iyadoo barax tiran bay ku gudbiyeen culamada dambe in badan oo kamidi ama sidayday iskuulay ka soo baxeen waa bawsadeen ama sida sheekhan iyo culimada lamid ay iskuul la galeeno jaamacada kaga soo baxeen marka af carabiga ku badan markay laqabihi uu ka sii lumaya oo tii may xijinin culimadii hore lahaayeen in yar mooyaane qolada warbaahinta ee dambana iyana waa lamid qoladii hore wax ku qoran af ingiriisi ama carabi baa loo dhiibi jiray dabeetana tarjuma fawriya inuu markaaba af kale Soomaali ku tarjumaa baa laga rabay waana la tababari jiray iminka dadkoo dhammi waa wada wariyo website iyo jariidad iyo waxbu qoraa xataa af Soomaaliga daayeen waliba ka gurigooda lahjada gurigooda lagaga hadlaa buu qoraa saadaradeed inaad fahmin baabay u badantay waxa dhacday marka warbaahinta dambana afka Soomaaliga waa ku tumata waa baabiisa kan idaacada laga hadlaan sax ahayn ama fiicnayn kan jaraa'idka lagu qoraan in badan oo kamid fiicnayn yani aad buu baaba quality-giisu wuu liitaa tayadiisu aad bay u liidataa warbaahinta dambe haddaan warbaahintii hore ammaanaya ta dambe way ceebaysanta kooxda saddexaadna waa macallimiintii iskuulayda iskuulinkii dee dawlad baa jirtay oo daabacaysay maxaa la yidhaahdaa curriculumkii manaahijtii bugaagta u soo daabacaysoo la dhigayay hadda markay dawladihii burbureen ee curriculumkii cid soo daabacda aanay jirin nin waliba meelaha kaluu kala yimi syllabus yar iyo curriculum waddanka markaad iminka Soomaaliya gudaheeda tagto qaar mid ay Kenya kala qaateen bay sitaan qaar Yemen bay sitaan
qaar sacuudiga mid ay kala yimaadeen bay sitaan waxaa laga yaabaa ilmahagu hadduu iskuulkan dhiganayo abha iyo waxbaa loo dhigayaa iyo shu'un ijtimaaciya u ah markaad kaa kala geysa kasale iyo meel kaluu dhiganayaa wax kalaa u ah markaad yeman geysa tacis iyo meelo kaluu dhiganayaa waayo dee dadkani ma haystaan bugaag saa daraaddeed waxay iska soo xambaarteen nin walba ciddii sadaqa u siisay ayuu ka soo qaatay marka manaahijtii markay duntayna macallinka dambana isna kaljarka iyo dhaqankii muu ilaalinin dee waxa inaga dumay buu afku ka mid yihi dowladnimo qura inagama dumine dadnimadii soomaaliyeed oo dhan baa duntay waxay hidde iyo dhaqan iyo af iyo kaljar iyo waxay lahaayeen dhan bay dumiyeen welina inay dib u dhisaan waa diidan yihin